dadkaygu cadaanay geyn inuu ani cuntamo cawaaqib xumay dhashay caloosha miyaan ka diido arkee iyo mayaa idhaahdo miyaan cunto wadha ku الرحيم anigoo cabdisamed ibraahim nageye oo madaxweynaha Awdal State waxaan maanta shirkan jaraa'id u qabanay arrimaha la rabo in maamulka Hargeysa ee beesha kaliya iyo in lagu heshiisiyo Soomaaliya wax badan ayaa waxa jirtay in had iyo jeer dawladda Soomaaliyeed xamar degan ee sharciga ay had iyo jeer talaabooyin waxay qaadi jirtay qaldan oo ayna had iyo jeer beel kaliya oo waqooyiga degta ay masiirka ummadda waqooyiga degan ay kala tashato horaan ugu sheegnay dawladdii Shariiftii Xasan Sheekh mid walba haddii anagu nahay reer Awdal in aan cid annaga aan ahayno reer Awdali aanayna masili doonin nin Hargeysa ka shaqaysta oo $100 ka qaata inaanu magacayaga nagu masileyn masiirka ummadayda aanu masileyn waxaan idin sheegayaa mid masiirada taariikhayna soo maray waxa kamid ah 1884 oo wax badan nolosha reer Awdal ka bedelay oo runtii hoos u dhigay oo gumeystigii markaa yimid dhibaatooyin fara badan oo u geystay oo ka hoos mariyay ummadaha kale waxa waqtiga baaba'ay oo ay nimankii isticmaalku ay baabiyeen caasimadii geeska waqooyiga ma aha Soomaaliya oo dhan caasimadda u ahayd Sayla in la baabi'iyo si dadka dhulka degan ee wax kala garanaya loo isolate gareeyo 1954 haddana waxayna soo martay in dhulkeena la kala qaybiyo oo qaybina la soo raaciyo xagga Soomaaliya ay noqotay maanta qaybina Itoobiya noqoto oo dadkeena ay qaybsamaan masiirada kale aan idin sheegay ayna soo maray waxa kamid ah 1991 oo dadkii markaa hoggaanka ummadda u hayay lagala tashanayay odayada waliba ahaa in siyaasad xumadii halka laga sameeyay ay maanta aad arkayso masiirkeedii halkayna la marayso inaynaan waxba gacanta ku hayn siyaasadeeni masiirkeeni taladeeni dhaqaalaheeni waxba aynaan gacanta ku hayn hadda wax maanta waxa jira shir in lagu qabanayo Djibouti shirkaasi wuxuu noqonayaa mid isna masiirka dambe ee soo socda 50 sanadood wax ka bedeli doona nolosheena waxa weey yaayna masilaya oo shirkaasi tagaya ma waxayna masalaya nin ku jira systemka Hargeysa ee dibtiisa aynu ognahay 30 sano ninkaasi oo nin la wato way ninka Hargeysa ka imanaya waa nin la wato oo aan masiirka ummadaasi marnaba u naxayn waxaan u sheegaynaa beesha caalamka waxaan u sheegaynaa dawladdan xamar oo mar walba iska dhigatirta masiirka ummadda reer Awdal waxaan u sheegaynaa war anaga ninka Hargeysa ka yimid ee la wataa nama matilo marnaba nama matilo ninka Hargeysa ka yimid waa nin shaqaalaha oo u shaqeeya system baadila oo u shaqeeya systemkii halka in la dhigay 30 sano waxa weey kaasi inama matilo ummadan waxa matala dad u naxaya ummadooda reer Awdal oo reer Awdal ujeedadoodu waxaan uga jeedaa marka la reer Awdal waa nin Awdal u naxayo aan dantiisa u naxayn way oo dantiisa ka shaqeynay waa nin aan shaqaale ahayn waa nin ka xora maamulka Hargeysa yaala ee baadilka dadka reer Awdal waxaan sheegayaa war 100 sano in ka badan ayaa taladeena iyo maamulkeena cid kale gacanta ku haysa halka la dhigayna waa ogtiin ilaa maalinka maanta halka la dhigay ma waxaad rabtaan 100 sanadood oo dambana in taladiina dad kala hayaan waxa way taladiina idinka leh international community male xamar male hatta cid lihi ma jirto jigjiga male Djibouti male Hargeysa male taladiina idinka leh waxa way taladiina waa inaad isku taagtaan waa inaad u kacdaan waa inaad u hadashaan
waa inaad u dagaalantaan waa inaad u dirirtaan waa inaad naftiina iyo dhaqaalihiina intaba ku bixisaan adduunka waxa ugu qaalisan inuu qofka banaadmiga xor noqdo xataa xornimadaasi xataa waxay ka qaalisan tahay jiritaanka qofka waayo qofka waqti buu leeyahay muduu leeyahay wuu tagaa caruur baa ka hadha ummad baa ka hadha waxa weeye xorriyad haddaanay ku noolayn ummaddu waxa weeye noloshooda waxba kama jiraan marka waxa weeye waxaan u sheegayaa reer awdal war xorriyaddiina inaad isku taagtaan weeye boqolaal sano dambe inaad haddana cagta hoosteeda ku jirtaan idima anfacdo waxaad isku taagi kartaan weliba wax weyn idinkaga bixi maayo inaad isxoraysaan in aad isxoraysaan weeye inaad diidaan weeye wixii dusha laydinka saarayo waxa weeye beeshan jaarka idinla ihi wax kale uma socoto waanay og tahay waanay gaadhay waan xaqiiqdiina way soo taabatay inaan waxba la kala go'ayn laakiin hadda maxay rabtaa hadda waxay rabtaa in ay dusha idinkaga sii taagnaato 50 sano oo ay u xaqiijiyaan xamar iyo international community iyo community dawlad kasta oo leeyahay war halka jooga leeyahay meel la idinku hayo la idin dhigaa iyaguna korka joogan waxa weeye hadda idinku dhowdahay in aad istaagtaan oo diidaan weey inaad muujisaan weey inaad gacan iyo afba ku muujisaan weey inaydaan hadda kadib dusha la idinkaga taagnaanay wax la kala go'ayaa ma jiro Soomaaliya way isku soo noqonaysaa laakiin hadda waxa la isku hayaa waxaad idinku lahaydeen sidii qolo kale u qaadan lahaydeen meel kale ugu la tagi lahaydeen u iib geysan lahaydeen idinku sidii haddaba aad ugala hali lahaydeen ayaa la rabaa waxa weeye inaan ka shaqaynana weeye inaan joojino international community-gana waxaan u sheegaynaa iyo xamar labadaba war anaga cid aan anaga ahaynima masisho ummadda reer awdal ee dibadaha degan inta caafimaadka qabta inta caqliga leh inta garaadku ku jiro waxaan jecelahay in ay isku yimaadaan oo ay wada shiraan oo ay arrimaha noocan ka shiraan oo ay hadhowna shir guud aan iskugu nimaadno oo bal hadda mustaqbalka reerkeena halkaan u wadayno aan ka wada tashano waxa weeye oo bal sidii aan wajiyo reerkeena u hadla mar walba u heli lahayn in aan samayno marka idinkan waxaan idinku baaqayaa qoladiina qurbaha joogta inaad isku timaadaan wada shirtaan masiirka ummadda ka wada hadashaan soo jeedaan foojignaataan waxa socda ogaataan maaha intaad shaqaysataan inaad nolol maalmeedkiina uun ku mashquushaan maaha waxa weeye masiirkii ummaddiina ayaa khatar ku jira inaad tashataan weeye oo aad fadhiisataan oo wada hadashaan oo waxaad ka tari kartaan wuxuu doonaba ha noqday qof kasta contribution buu keen karaa waxbuu ka qaban karaa inaad wada tashataan weeye